يعني عاو وحا جرت لو مناسبات با اسكورفوشو مناسبة دي علنكا iyo guushan Soomaali u soo hoyatay hadii tan calanka aan ka bilowno caawa calankeena Soomaaliyeed waxa 67 jirsaday markii la aasaasay oo Soomaali oo dhan meel ay joogto oo hal calan ay wadaagayso astaan u ah markaas ugu horeysay 1954 October marka hadii oo dawladnimadeena ay marmar aan ku feena kacayno waxa weeyaan yaana la yaabin waxa way dawlad modern ah casri ah dhisideedaba muddo ilaa 70 sano baa wadna hadii laga soo bilaabo 49 ilaa maanta waa 70 sano ay taabanaysaa marka ummadaha kale oo 200 300 gaaray yaan lagu daysan annaga wili waa gafeena waa ku feena waa kacayna laakiin waxaan ku soconaa dawladii la dhisay munaasabada caawa tan labaad daa u gudubno oo ah arinta oo badda Soomaaliyeed arintii ku saabsaneed taariikh dheer ay soo martay waxaana aad u haboon in maaragta qof walba uu soo galay ama hay'ad kasta markii dawladda ay soo gashay kulligood waxbay hagaajiyeen hadda ka soo bilaabo dawladdii kacaanka shuruuc badan bay gudbisay hadii la ku rooyay oo ku saabsan badda ka soo tag dawladihii ka dambeeyay kulli waxbay soo qabteen xukuumaddii ka dambeysay baarlamaanka ka dambeeyay madaxweynihii ka dambeeyay ayaa dushooda ay ku soo dhisayeen hadii la ku rooyay arrimaha ayaga arrimo badan oo aan la socdo ayaa jirta laakiin hadda kama gaaro waxaan si aan rabaa in marta aan yara taabto marxaladaha ay soo martay marxaladahaasi waxa ay ka soo bilaabataa yani intaan la socdo 2008 waxay ka soo bilaabatay markii UNCLOS ka hor waxa weyn United Nations intii dawladda kacaanka ay jirtay waxa la ansixiyay sharciga la yiraahdo UNCLOS sharcigaas wuxuu sheegay 10 sano ayaa la siiyay dawladaha dambe inay soo sameystaan qof dawladii leh geey qaaradeed inay soo sheegaan wixii sahan ay soo sameeyaan oo farsamaha iyo wixii oo shuruuc oo gobol dhig loogu sameeyay annagu ma aanu lahayn mashaakil jiray markaas baarlamaanku waa kala qaybsanaa dhibaato jirtay waxaan leeyahay baarlamaanka qaarna waxay dal ajnabi jireen qaar intay joogeen yani xukuumad galabgalab ay kasto yar waxa xaafadda joogay oo markaa United Nations madax u ahaa nin la yiraahdo Walad Cabdallah ayaa warkaas soo gaaray oo markaa 10 sano waa dhamaanayaan hadii 10 sano aan laga gaarin baddaas oo aan Soomaali ahaan u sheegan waxay noqonaysaa meel caalamka dhan wuxuu ka sameyn karo ayna adiga khaas ku ahayn Walad Cabdallah wuxuu la soo xiriiray xukuumaddii markaa jirtay waa Allah yarxamu Nuur Cadde iyo ku xigeenkiisii wuxuu ahaa Axmed Cabdisalaam la yiraahdo ayagaas waxa daraasadiisa loo sameeyay maxaa laga yeelaa yaa sameynay ma la haynin marka ayaga waxay bixiyeen fasaxi in marata la sameeyo dawlad loo raajo Walad Cabdallah wuxuu doortay Norway inay sameyso daraasada ayada oo Western Africa oo dhan oo soo sameysay majaalka oo soo sameysay tiiba la sameeyay oo hadii la ku rooyahay sahan farsamo iyo shuruuc lagu soo saaray oo kundhig loo dhigay ala kulli hal mar inaan war ku dheeraado way soo socotay xukuumadii ka dambeeyay mid wax buu geystay oo kordhay waa ku soo dhisay laakiin marka oo caawaan u joogno waxa weeyaan turning point waxa yiraahdaa jiro meesha marka oo arinta markay soo kululaatay oo laga qabtay waxa weeyaan xukuumadii oo yani dawladdii oo hogaaminayay Xasan Sheekh marka saawste qof walba waxba soo qabtay laakiin marka oo saxiixay arinta la yiraahdo proclamation ama iclaan rasmi oo ka sameeyay oo xadidayo yani sheeganayo geeyeen intuu la egyahay meesha uu joogo waxyaabaha loo baahan yahay iyo supporting document wixii marta oo kaalmeynay inuu geeyo meeshii marta UNCLOS waafsan geeyo asaga oo sabab ah taasi waxa weeyaan baarlamaankii 8aad for example oo Cabdi Xaashi nagala joogay dad kala suurtogal ah waxay gaareen go'aan dhaxalgal ah baarlamaanka 9aad wuxuu ku fariisay go'aanka 8aad buu ku fariisay kan baarlamaanka 9aad waxa way wada tashi wanaagsan baa ka jiray guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha dhexdeeda xiriir fiican ka socday arrinta ku saabsan labada arrimood oo aan Xasan Sheekh ku amaanayo aan ugu mahad celinayo intaan shaqada isla haynay waa laba arrimood arrinta koowaad waxay ahayd markii asaga la doortay ani hortiisa la doortay laakiin markii asaga la doortay waxaan ku heshiinay in adiga laba siyaasi aan haddaan iskhilaafno dhagta shacbiga aan ka ilaalino khilaafkeen dhexdeen la hado qol aan isku xirino aan isku fiiqno
laakiin yuusan dhaafin. taas waa iga yeelay alxamdulilah. waxa weeyaan 4 sano aan la joognay ma dhicin, bannaanka uma soo bixin. tan labaad waxay ahayd markii arrintan aan qabanqaabinaynin, arrinta badda ah, ayadana waxay ahayd in ilaa aan ka geynayno United Nationka 4 qof baa la socotay. waa aniga, waa xasan sheekh, cali balcad nin la yiraahdo oo markaa chief of cabinet uu ahaa xasan, iyo gabadha Muna oo iyadan markaa meesha noogu timid. adiga ka bacdi dadku waa soo kordhay, Allah yarxamuhu. waxaa ku soo galay injineer Saalixi iyo dad kale ku soo darsamay badan. wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa kala socotay isheeg madam Fawziya. adiga dadku waa soo kobcay, laakiin ilaa la geynayo Kenya waxay noo haysatay, ilaahay waa noo sakhirayo marar qaarkood waxa weeyaan daayare geeda ka soo degay noo moodaysa, laakiin waxba qabsan karin, laakiin waa ku sirantay. waxaa indhaha u furmay oo kaliya markii meesha la geeyey. istaraatiijiyada oo meeshkaasi oo aan ku heshiinin madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo annaka guddiga joogtada waxay ahayd 5 tallaabo istaraatiijiya ayaan degsanay. raqam 1 horta inaan raadsano daraasaadkii laga sameeyey oo ay dowladda Norway ay sameysay United Nationska hayay. raqam 2 in daraasadaas kaligeed aanan aaminin oo aan second opinion fikrad kale aan raadsano. fikrad kale la keenay, waa la fiirshay, waxa inay sax tahay, inay marta unkos waafaqsan tahay jiidimaha aan samaynayno. 2 ahayd. 3 in la geeyo inaan geeyno guddiga, aan geeyno marta dacwadda aan gudbino proclamation samee, يعني واسر رسمي بروكلاميشن إعلان رسمي جمهورية الصوماليات ماشي أي أجي كذا وكي يصير هي إلى آخره. إيو مقدور يده أو مرتا راعي راعيس. رقم 3 إن ميدينه يعني رأي جدوينها كان حكومته كان برلمان كإنه مد نقد مرتا أن لوكال مجلسين وحي كم هذا الاستراتيجية. إيو إن لعكتيه للرادشو قوانين حتى الوقوف لله. أرنتا يعني سفي عم بينهم مرتي الحمد لله وهذا شقين بيكون إمادي مركا جوشة وحيوسه هويتي شعبي الصومالي عد جوني ولا مر. هدي يعني مرة قاركوت هذا لا أن نحن واسكتير لكن نحن كذا أنا قرني عاو أنفسر بالضل معويه مجي معنيس ضل مركا ترى هذا كل كلمة ضل وحكك هو هي جي شعبي وح الله وحي نولا كجرا حدود كود لا يخان. أما هالنقطة دير هالنقطة نجح هالنقطة هدي ضد هالنقطة واحدة مش كذا دقائق كاست عم دابة كل دابة يعني كل ما دب في الأرض وكجر حدود كسوح حالي هذا الضل مركب واحد الوقف سدوا حياة جيجة الضل كان يا إسكاله وحا إسكاله الشعبي مركب جوش هذا يسوه يتي وحا إسكاله شعبي الضل كإسكاله هذا استل صاد رادت أنت كلام هالسنة لها لكن جوش وحا إسكاله الشعبي يعني مرسك الله اللي حنا وحلقوا بديه لكن وسوق عبنا وحويان هذا دردارت وحيتها ملك الصومالي أي جوكت هذا مواطنين جمهورية الفدرال هذا تتكلم أمة الصومالية كتسون الدافع الدنيا كلا دقن حنقط كوا درس ملك استوى وحويان إن جوش أن لجاري 6 تواضع أنا قابلنا أن مرتا فنفان يو كبير يو أنا لقول سمين تواضع والسوق هو جو سوق يتي هلا هنتو aan ka fikirno sideebaan mustaqbalka u hanan doonaa dabadeen u ilaashan doonaa una hanan karnaa oo aan ugu samayn karnaa daraasada. taasi waa iga dardaaran haddii la yiraahdo oo aan u baahanahay inaan kulligeen aan ilaalino. waxa igu dambeyntii aan rabaa inaan iraahdo waxa way guusha Soomaaliya waxaan leeyahay wax Soomaaliya amniga u soo hoyda وأمنك كينيا وأمنك إثيوبيا وأمنك قبل كوردن دقالة أسوه صوماليا ودقالة أنفعيس الأمان قبل وإستأفت كوردن نبدأ يؤمنك كل شيء سوحويا ومثل ذاك أويا صدرات هلو فهموا وحنسوه ويدي وأمني ودقالة وبإستيادي النبض أسوه يدي جيسك أفريقيا كوردن ويا إن شاء الله وركي ميشان كسوكو ولكن دمبيا مركو حلقة وقابنا بدلقت هنا مجرتي بينا إيه بين إيه حاول بدي واتل مشري تلا دك الغبر بقامي بدل قتين بلا كل كقعدة والسلام عليكم.